Assalaamu calaykum asxaabta. Cabsidu waa falcelinta dabiiciga ah ee aynu ka bixinno marka aynu la kulanno ama ay nagu soo wajahanto khatari. Waana wax iska dabiici ah in dadka badankoodu ay waxyaabaha qaar ka cabsadaan, sida meelaha uu joogoodu sarreeyo, in aad khudbad u jeediso dad badan oo ku soo hor fadhiya. Sidoo kale ka cabsashada caarooyinka iyo masaska laga yaabaa intaasba in aynu badankeennu ka cabsanno. Laakiin cabsida ayaa kala ah mid iska dabiici ah iyo mid aad u sii daran oo ay dadka qaar ka cabsadaan shay aan mudnayn, ama cabsida qaar ayaa gaadha ilaa heer aad u daran, heer ay noqotaba xanuun, kaasoo lagu magacaabo phobia. Waana cabsida aan caadiga ahayn ee ay dadka qaar ka cabsadaan shay, goob, xaalad, dareen ama xayawaan si xad dhaaf ah. Xaaladahaas cabsashada aan caadiga ahayn ama phobiyada ee ay dadka qaar dareemaan waxa jira kuwa aad u yaab badan oo aan muuqaalkeena ku soo qaadan doono. Haddaba daawada soo dhawow haddii aad xoogaa geesi tahay oo aanad ka baqanaynin inaad qaarkood qabto. Nomophobia. Marka aad shaqada ka soo rawaxdo ee aad guriga timaado, haddii aad ogaatay in aad telefoonkaagii ku soo ilowday goobtii shaqada ama uu dhexdaba kaaga soo lumay, waa arrin dareenkeeda leh. Balse dadka qaba xaaladan loo yaqaano monophobia waa ay kaga duwan tahay arrintu sidaas, oo waxa ay u keeni kartaa dawakhaad iyo inuu wadna xanuun ku dhufto. Erey bixinta magacan oo laga soo gaabiyey no mobile phone phobia oo ah ka cabsashada mobile la'aanta ama isticmaal la'aantiisa, waxaa la soo saaray sanadkii 2010 kadib markii daraasad ay samaysay shirkad Ingiriis ahi ay ka soo baxday in dadka isticmaala telefoonada smartphoneska kala bar ka mid ahi aanay noolaan karinba iyaga oo uu ka dheer yahay lamaanahooda ay jecel yihiin ee mobilku, xataa waqti yar oo aad u koobanba. Xataa ka fikiridda ah inuu dabku ka dhaco ayaa halis weyn ku ah naftooda oo ka dhigtay in ay mar kasta ag fadhiyaan bareesada. Waxaase iyana xusid mudan in ay xaaladani tahay mid caam ah oo dadka aad ugu faaftay. Daraasad lagu sameeyay waddanka Mareykanka waxaa lagu ogaaday in dhalinta waddankaas 6% ka mid ahi ay dareemaan xaaladan, iyada oo 12% ka mid ah dhalinta dadka Mareykanku ay u sii qaataan mobilkooda xamaamka. oo garo oo ma aha in ay isaga soo duubayaan muuqaal TikTok-ga, balse waa inay ka cabsanayaan walwal ku dhaca inta ay ku jiraan xamaamka. qaar ka mid ah culimada cilmi nafsiga ayaa aaminsan in ay xaaladani la xidhiidho waxa loo yaqaan isolationka ama kelinimada, oo ah in ay dadku waayaan dadkii ay jeclaayeen ee ay kala xidhiidhi jireen mobilka. balse waxa iyana isweydiin leh, dadka inta badan mobilada lagala xidhiidhaa waa asxaab mala awaala ee qofka waqti la qaadan kari waayay dadka ugu dhow ee ehelkiisa iyo asxaabtiisa ah ee guriga la jooga, ee kelinimo dareemaya haddii uu waayo asxaabtaas mala awaalka ah ayaa iyadna isweydiin u baahan. haddaba daawade maalmihii dhaweeyay social media qaar ka mid ah uu ku dhacay shutdown-ku sida Facebook iyo WhatsApp-ka. haddii aad dareentay xoogaa madax xanuuna, waxaa laga yaabaa inaad xaaladaas qabto ee is ogow. Neophobia waa qofka oo ka cabsada isbeddel kasta oo noloshiisa saameyn ku yeesha ama wax kasta oo cusub oo noloshiisa ku soo kordha, walow isbeddelkaasi haddii uu doono haba u wanaagsanaado noloshiisa ama khayrba ha u lahaadee. haddii aynu si kale u nidhaahno, waa waxa loo yaqaano barti yaqaan bari uma korodho. halka uu degan yahay inuu ka guuro ma jecla, nolosha uu ku nool yahay inuu wax ka bedelo oo xataa horumariyo ma jecla. xaaladanina waa xaalad ay inta badan u badan yihiin dadka da'da weyn leh. bal hadda qiyaas inaad ayeeydaa u geyso mobile smartphone, dabcan ma isticmaalayso oo waa ay diidaysaa, waayo waxay aaminsan tahay inuu yahay shay aad u adag oo tiknoolajiyad cusub ah oo aanay fahmaynin. xaalad kale oo xaaladaas la xidhiidha ayaa waxaa lagu magacaabaa neophobia, taasoo ah in uu qofku ka cabsado tijaabinta cuntooyinka cusub. bal tusaale ahaan ka soo qaad adiga oo soo galay goob laga cunteeyo oo aanad hore cuntada uga cuni jirin, oo uu mudalabkii goobta joogay kuu tiriyo cuntooyin fara badan oo aad magacyadooda garanaynin, balse aad hal magac ka garanayso oo ah digir ama harako. haddaba daawade, haddii aad go'aansato in aad dalbato labada magac ee aad garanayso, dabcan xaaladani waa mid kula daraysa. xaaladanina waxay aad ugu badan tahay carruurta yaryar oo inta badan ka cabsada in ay tijaabiyaan cuntooyinka cusub ama aanay hore u cuni jirin. Combonophobia. Combono waa erey Laatiini ah oo la macno ah botanka ama badhamada maryaha lagu xidho. Batamadu waa tiknoolajiyad casri ah oo dabcan dadka nolosha aad ugu fudaydiyey. qof kastana waa ay u fududahay in uu isticmaalo, marka laga reebo dadka qaba cudurkan loo yaqaano combonophobia, oo ay iyaga badhamadu yihiin cabsidooda ugu weyn adduunka. dad lagu qiyaaso in ka badan 75,000 oo qof oo adduunka ku nool ayaana qaba xaaladan. maadaama batamadu ay yihiin waxyaabo aad u yaryar, waxaa laga yaabaa in ilmaha yari liqo oo uu ku margado ama ay sankaba ka gasho oo ay qaaxada u fadhiisato. balse waxaa isweydiin leh, qof weyn muxuu yeeli karaa? waxaa laga yaabaa inay ku adag tahayba tixidooda ama xidhxidhidooda marka ay shaarka gashanayaan.
waxa iyana muhiim ah in aynu xusno xaaladdan loo yaqaano combonophobia in ay tahay ta ka dambaysa mid ka mid ah ikhtiraaciyada adduunka ugu weyn oo ah soo saaritaanka moobaylada smartphoneska. waayo ninka lagu magacaabo Steve Jobs oo ka mid ah dadkii wax ka ikhtiraacay moobaylada smartphoneska ayaa sheegay in uu xaaladdan qabo. waxa laga yaabaa in ay tahay fikirkii ka dambeeyay in laga guuro moobayladii hore ee lahaa batomada oo loo guuro kan smartphone-ka ee bilaa batonka ah. taasna waxay noo sii ta'kiidinaysaa markaad u fiirsato maryaha uu inta badan gashado oo ah qaar bilaa batomo ah ama u badan funaanado aan lahayn badhamo. haddaba daawade ma laga yaabaa in aad adiga laftigaagu ka mid tahay dadka ka cabsada batomada? si aynu taas u hubinno bal hadda isku day in aad taabato botonka like-ta ee muuqaalkan iyo subscribe-ta hoose ee channelka. Phenostrophobia weli daawade ma kugu dhacday in aad istiraahdo la hadal gabadh aad u qurux badan balse aad is aragtay in afkiiba candhuuftii ka dhammaatay oo carrabku uu isku kaa dhegay wada dhididna aad noqotay? bal haddaba waxa aad qiyaastaa in keliya jalleecidda gabar aad u shidan ay kugu keeni karto inuu wadna xanuun kugu dhufto. taasina waxa ay ka dhigan tahay in aad leedahay xaaladda loo yaqaano phenostrophobia. waa nasiib darrada ah in aad ka cabsato gabar kasta oo aad u aragto in ay soo jiidasho leedahay. marka loo eego dadkaasna runtii ma aha wax lagu qoslo oo keliya soo xasuusashada gabar aad u qurux badan waxa ay ku sababi kartaa dawakhaad iyo xataa matag. la noolaashaheedana maxaad u malaynaysaa? waxyaabaha sababana waxaa ka mid ah inuu ninku aamino in gabdhaha quruxda badani ay hawlo iyo dalab badan yihiin oo aanu qaadi karin iyo in laga yaabo in ay ku qanci weydo oo uu diidmo kala kulmo. isku soo wada duuba waa halkii ninkii awoowo ee waa adiga oo ka cabsada in aad noqoto mid ka mid ah daanyarada waaweyn ee qalanjadaas ku hareeraysan. Xanthophobia midabka jaallaha waxa lagu astaansadaa farxadda sida cadceed soo baxa iyo xilliyada guga ee ay ubaxyadu wada dilaacaan. qof walbana waa u midab saaxiibtinimo marka laga reebo dadka qaba xaaladdan loo yaqaano xanthophobia. kaliya kama cabsadaan midabkan ee waxa ay ka cabsadaan dhammaan wax kasta oo leh midabka jaallaha ama huruudda laga soo bilaabo mooska ilaa basaska iyo tagaasida. nalalka jaallaha ah iyaga hadalkoodaba daa oo dacar ayay ku kiciyaan. xaaladani waxa ay hoos tagtaa dalladda loo yaqaano colorful conundrum oo ah dadka kale ee ka cabsada midabada qaar oo ay ka mid yihiin melanophobia oo ah dadka ka cabsada midabka madowga, leukophobia oo ah dadka ka cabsada midabka caddaanka iyo qaar kale oo la mid ah. Tyrophobia waa xaalad kale oo phobia ah oo aad u cajiiba oo ah inuu qofku ka cabsado wax kasta oo leh godgod ama daloolo yaryar laga soo bilaabo qubka sare ee khudaarta qaarkood, indhaha badan ee canjeerada iyo shamaca shinnida iyo wax kasta oo la mid ah. waxa ay ka dhigi karaan dadka qaba xaaladdan kuwa matag soo hayo ama aan deganayn. xayawaanada barbartale iyaga hadalkoodaba daa. welina cilmiga saynisku wax sabab ah uma hayo waxa sababa ee keena xaaladdan, balse hal aragti ayaa sheegaysa in laga yaabo inuu qofku la xidhiidhinayo qaar ka mid ah xanuunada ku dhaca maqaarka sida cudurka loo yaqaano bitter keratosis oo ay bakteeriya sababto iyo Suriname toad. Abolotophobia waa qofka oo ka cabsada maydhashada ama nadiifinta jidhkiisa. sida daraasad lagu cadeeyayna dumarka iyo carruurta ayaa uga badan ragga, laakiin carruurta inta badan waa ay ka baaba'daa marka ay weynaadaan. xaaladani waxa ay qofka ku sababtaa inuu wadnuhu xoog u garaaco oo ay neefsashadu ku cuslaato marka ay rabaan in ay maydhaan. Hypnophobia waa qofka oo ka cabsada hurdada ama asal ahaanba inuu seexdo. tanna waxaa sababa dhowr shay sida qofka oo ku riyooda riyooyin fara badan oo cabsi leh iyo dadka iyaga oo hurdo kaca oo socda oo qaarkood ay ku dhintaanba shilal ay galaan waqtiyadaas. waxaa sidoo kale sababa qofka oo ka baqa inuu hurdada ku daaho oo uu berri ka daaho shaqada oo kale. waxaanay qofka u geysataa xaaladani halis fara badan oo dhanka caafimaadka ah oo dhibka dhafarka oo weliba aad isku qasbaysaa ma hawl yara. daawade muuqaalkeenan maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. bal waxaad xagga hoose ee commentiga ku soo qortaa foobiyada aad is leedahay adigu waad leedahay ama shayga keliya aad istiraahdo waad ka cabsataa. sidoo kale barta hoose ee commentiga noogu soo sheeg haddii aad jeclaan lahayd inaan ka soo samayno qayb labaad. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan nagu soo biiro channelka saar subscribe, sidoo kalena muuqaalkan like u dhaaf una sii share garee qof aad is leedahay waxyaabahan aan soo sheegnay mid ka mid ah ayuu ka cabsadaa. tan iyo kulanti dambe.